بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. marka koowaad waxaan ka wada salaamayaa ardayda dhigata public health-ga jaamacadda bariga Afrika. Waxaan ugu talagalay barnaamijkan in aad wax badan kaga fahantaan programka loo yaqaano SPSS-ka. SPSS-ka sida la socotaan waa software program loogu talagalay statistics-ka in lagu analyze gareeyo. waxaana loo yaqaanaa statistical package for social science. waxa uu samaysan kartaan maadaama horey u dhigateen maadada biostatistics-ka manual ahaan. qaybtan insha Allah waxaad u arki doontaan sida software-kan SPSS-ka datadaada oo dhan aad ugu xareysan lahayd kadibna aad ugu analyze gareysan lahayd si step by step ah oo qaab aad iyo aad u fudud ah. insha Allah waxaan idin dhigi doonaa lecture-kan waxaan ku saabsanaan doonaa sida loogu sameeyo frequency table-ka SPSS-ka, sida loo sameeyo charts-ka simple-ka ah sida pie chart, bar chart, charts-ka aadka simple-ka ah oo Excel-ka aad ku samaystaan. sida daatooyin markaad haysatid different variables example marka survey samaysid oo kale aad dadka su'aalaha aad weydiisay responses-kii kala duwanaa multiple responses questions macnaha su'aalo qaybo badan leh sida aad u analyze gareysan lahayd iyo sida aad u xisaabin lahayd mean-ka ama average-ka iyo standard deviations-ka iyo sidii aad u tusi lahayd table ahaan aad ku tusi lahayd means-ka ama average-ka hal table aad wada gelin lahayd oo daatooyinkii oo dhan ku wada jirto iyo sida aad ugu samayn lahayd table loo yaqaano cross tabulation table-kaas oo aad percentage-kii iyo total number-kii iyo mean-kii wixii dhan aad kusoo dhexgelin lahayd iyo adigoo ku fiirinaya chi-square waa test loogu isticmaalo in dhowrkan shay aad baaritaan ku samaynaysid wax xiriir uu ka dhexeeyo iyo in kale iyo qaybtan ah correlate variables-kan waxa uu talagalay inaad ku fahantaan ama loogu talagalayba software-kan loogu talagalay in lagu sameeyo laba variable haddii ay xiriir leeyihiin iyo in kale iyo compare two means with the test iyo laba average sida aad ugu samayn lahayd adoo isticmaalaya testiga loo yaqaano student t-test iyo sidii aad tableski aad qurxisay oo meesha aad wada report kaga soo wada baxay aad ugu wada samayn lahayd kulligood waxa loo yaqaano qurxinta saa u qurxin lahayd marka ila arki qaabkan. qaybta ugu horeeya waxaan idin tusi doonaa sida lagu sameeyo frequency counting-ga one-way tabulation-ka ah. marka koowaad waxaad tegeysaa analyze kadibna waxaad tegeysaa descriptive statistic kadibna waxaad tegeysaa frequency. halkaa markaad tagtid halkan daato hore uga xareysan ayay ahayd daatooyinkii variableski kala duwanaa ee meesha ku xareysan halkaas ayay ku aragtaa. kadib waxaad dooranaysaa anyone mid ka mid ah barnaamijka wuxuu ku saabsanaa survey laga qaaday dadka idaacadaha iyo waxa ay dhageystaan. so halkan ayaa waxaad gelinaysaa variableski dadka responseska ay sameeyeen mid ka mid ah waxaa ku dhex variableskaaga weeyaan halkan ayaa mid usoo transfer garaynaysaa kadibna okay dheh kuwan kale waxba ha taaban. okay markaad dhahdid reportkii page-kii ayaa tegeysaa. hadda halkan waxaa sida kaaga muuqata waxaa arkaysaa percentage-kii. su-aasha dadku weydiiyey waxay to which type of radio programming do you most often listen. dadkan su-aalo la weydiiyey ayaa waxay ahayd almost dad 300 iyo dheeraad 400 ku dhow ayaa wax la weydiiyey inta badan maxaa dhegeysataa. kadib dadkaas waxay ku jawaabeen idaacadaha ay dhageystaan waxay ku jawaabeen qaar waxay ku jawaabeen country western and western ay dhageystaan boqolkiiba 66 qof frequency 66 qof ayaa saas dhahay. easy listening-kaas intaasaa tiri rock intaas percent-ki inta ay ka yihiin marka intaasoo qof waa 16.5 laakiin inta badan kan lama report garayo waxa la report garayaa valid percent-ka maxaa yeelay missing ayaa dad ayaan jawaabin dad ayaa ka maqan dadka kale 15 qof aan jawaab aanan bixin marka intaas wuu ka boodayaa 385 qof ayuu ku saleysan yahay marka halkaas ayaa ka aragtaa percentage-ki. intaas marka aad samaysid taas waa marka aad samaynaysid table noocaas oo kale aad gelinaysid. hadda markaad frequency counting-gii table ula socdo
haddii aad samaynaysid isla meeshii baad tegeysaa analyze baad tegeysaa kadibna waxaad tegeysaa descriptive statistic kadibna waxaad isla sii tegeysaa frequency-ga kadibna waxa kuusoo baxaya meesha tan marka kuusoo baxdo example kan dib iskaga celi waxaa arkaysaa which newscast inta badan keebaad newska marka chart baan rabnaa inaan u sameyno variablekaasaan hadda rabnaa bal inaan fiirino chartigaas haddaan ku sameyno example pie chartiga oo kale pie chartiga dooranaysaa percentage meesha chart valueska frequency oo iska daynaysaa percentage ahaan ay tusbaa leedahay continue dheh continue markaad dhahdo okay sii dheh okay markaad dhahdid report page-ka ayuu ku geynayaa report page-ka hadda waxa aragtid waxa weeyaan intii hore plus haddeer percentage ahaan lagu tusay weliba pie chart lagugu tusay viewkaas haddaa rabtid inaad formatka bahalkan aad qurxisid oo hagaajisid oo waxaad double click baa iyada ku siinaysaa like actually which newscast do you watch most frequently tan ugu badan aad daawatid ayaa markaa ayaad ka arkaysaa marka qaabkaas ayaa waxaad ku arkaysaa sida lagu sameeyo chartiga marka tablekii waa haysataa chartigina waa haysataa halkan qaybtan waxaan rabaa inaan kugu fahansiiyo sida multiple response questions su'aalo macnaha dhowr jawaabood leh sida aad ugu sameyn lahayd oo analyze gareyn lahayd marka waxaad isticmaalaysaa frequency table sa ugu analyze garaysid most multiple choice questionska laakiin haddii dadka qaarkiis ay can choose more than one answer choice haddii tahay each answer choice is a separate variable halkii su'aal ay ka jawaabaan waxay noqonaysaa variable gooni ah haddaba si aad variableskaas oo dhan aad ugu analyze garaysid in one table multiple response set wax la dhaho ayaa samaynaysaa see marka loo sameeyaa multiple response set inta aad macnaha frequency-ga aadan samayn marka hore waa inaad su'aalihii oo dhan responseski dhan hal meel sad ahaan meel ugu xaraysaa hal magacna u bixisaa kadib waxaad samaynaysaa datada already meesha kugu wada xaraysnayd intaas markaa kasoo tagtid waxaad samaynaysaa analyze baad tegeysaa kadib waxaad tegeysaa multiple response kadib waxaad tegeysaa variable set define variable set baa sii tegeysaa define variable sets markaad tagtid waxaad tegeysaa example variableski mid ka mid ah dhowr xabo oo ka mid ayaa soo wada dooranaysaa adigoo isku dayay inaad qabatid midda dooratid mid kasoo bilow kadib waxaad samayn kartaa haddaad rabtid shift baa qabanaysaa markaas dhowr xabo dooran kartaa kadibna waxaad samaynaysaa intee valueska intee counter value example one baa halka ku qoraysaa kadibna waxaa u bixinaysaa saddexdaas hal magac baa u bixinaysaa marka kuwaas hal magac baa example waxa la news baa u bixinaysaa newspaper marka u bixisid label hal magac label baa usii samaysanaysaa oo ah newspaper macnaha taas hore waa usoo gaabinaysaa kanna waa newspaperka dadku ay akhristaan newspaper reading okay kadib halka hal set baa u samaynaysaa marka one set of news multiple response sets ah close dheh hadda waxaan samaynay sida aragtaan multiple response setkii baan samaynay hadda waxaan samaynaynaa frequency-gii analyze baa tegeysaa isla meeshii baa tegeysaa haddeer aan tegaynay oo ah multiple response kadib hadda waxa kuu soo baxay option ah frequencies kan ka hooseeya frequencieskaasa tegeysaa frequency-ga markaad tagtid frequency table baa gelinaysaa macnaha dooranaysaa kadib tableka geli tablekaas markaa gelisid oo ah tablekaas macnaha kadibna okay dheh intaas okay markaa dhahdid reportkii baa imaanaysaa hadda waxaa arkaysaa dadkii inay kala doordoorteen qaybo kala duwan inta badan percentage-ka noocan weeyaan kan rabna in analyze garayno maxaa yeelay tablekii baa hadda gelinay dadkan journalka ugu badan ee akhristaan ay soo sheegeen qaar waxay dhaheen New York Times baan akhrisanaa oo 87 qof baa tiri 103 qofna waxay dhaheen wax akhrisanaa USA Today Washington Post waxay yiri 23 qof percentage-ka mid kasta ay ka yihiin marka waa 103 waa aragtaa 48 marka percentage-kan inta badan ma isticmaalaysid waxay isticmaalaysaa percentage frequency ah percent of case marka waa kuwa kan sidan baa u isticmaalaysa waxaan filayaa inaad si fiican ii fahanteen intaas marka laga yimaado
waxaan rabaa inaan idin tuso qaybta ah sida loo xisaabiyo meanka, standard deviationka, daatada minimumkeedii iyo maximumkeedii. maxaa yeelay waxa u baahan tahay inta badan daatooyinka inaad samaysid mediumkii, standard deviationkii, waxaasoo dhan baa u baahan tahay inaad samaysid. taasna horey waxa ugu soo aragteen excelka, balse waxaan rabaa inaan SPSS-keeda ku tuso. ma-adka waxaad tegeysaa daatadii halkan u aragtay ku wada xareysan tahay. analyze tag, analyze markaad tagtid waxaad tegeysaa descriptive statistic. descriptive statistic markaad descriptive meesha baa kasii tegeysaa. descriptive markaad kasii tagtid hadda waxa kuu soo baxay variableskaagii waa kuwaas. variableskaaga marka meankoodii iyo standard deviationkii iyo wixii dhan baan rabnaa inaan sameyno. example, how many total dollars ayaad maqaxi wax kaga cuntaa oo kale ayaad variable ka dhigtay, kaas rabtay inaan analyze gareyno. option tag, kadib waxaad tegeysaa meanska iyo standard deviationka, minimumkii iyo maximumkii. waxaa aragtaa intaba hadda way noo dooran yihiin. continue baa leedahay. continue markaad dhahdid okay dheh. table waxaa noo soo baxaya ay nagu wada qoran yihiin daatadan minimumkeedii, maximumkeedii. how many total dollars do you spend per month in restaurant oo wax ku cuntid. example, 400 qof baa ka jawaabay. minimumka qofka lacagta ugu yar 400 ay ku bixiyaan $5 qof baa ku bixiyaa. qofka ugu yaraa macnaa $5 buu ku bixinayay. qofka ugu badnaana lacagta wuxuu ku bixinayay maqaaxida bishaas $450. mean average marka waa 150,525. standard deviationkana waa $150, sorry. standard deviationkana waa ujeedaa waa $92 difference baa u dhexeeya ka ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeya. intaas markay ka timaadid descriptive statistics hadda waxaa rabtaa minimumkii waa taqaanaa sida loo sameeyo, maximumkii, standard deviationkii iyo averagekii. intaasba table noocaas oo kaleeta ayuu kugu siinayaa oo aad fahmi kartid. haddeer waxaan rabaa inaan idin tuso qaabka loo xisaabiyo medianka iyo standard deviationka variables aad u kala duwan, kadibna hal table aan iskugu wada keeno. waxaa la isticmaalaa marka scale loo yaqaano, example Likert scale or semantic differential baad hal table macnaa ku wada gelinaysaa. kadib waxaa lagaa rabaa variableskaaga inaad order u samaysid. maxaa yeele waxaan soo aragnay haddii wuxuu order aysan ahayn daatadu way ka khaldamaysaa. marka example from highest to lowest ama to lowest to highest baad tegeysaa. intaas markaa ka timaadid hadda waxaad diyaar u tahay analyze baad tegeysaa. descriptive statistic baad tegeysaa. kadib descriptive tag, descriptive baad tegeysaa. kadibna daatadaadii reset iskale tii hore iska xir. qadar iyo kuwa variables halkan soo raro. because mediankii iyo standard deviationkii baa rabnaa inaan sameyno. example, shifti qabo dhowr xaba haddaa rabtid isku wada qabo ilaa halkaas variableska wada gasho. kadib option tag, kadib medianka ma rabno, hadda waxaan rabnaa standard deviationka, minimumka iyo maximumka iyo kuwaas ma rabno, iyo meankii. hadda daatadan waxaan inaan ka dhiganaa ama ascending ama descending means, daatadu sidii u kala sareynayso. marka waxaad dhigi kartaa descending means baad dhigi kartaa. okay, kadib continue dheh. continue markaad dhahdid okay baa leedahay. report pagekii wuu ku geenayaa. hadda daato qurux badan baa ujeedaa. dadkaas waxay mid kasta waxa uu dhahay waxa uu jecel yahay buu halka kaga sheegay. 400 qof waa kaas dadka meankoodii iyo standard deviationkoodii baa halka kaga wada aragta. okay, markaad serviceka sameynaysid ama caafimaad ha ahaato ama wax kasta ha ahaato iyadana saas oo kale u gelinaysaa. tan waa tijaabo aan rabo inaan kugu tuso qaabka waxaan lagu sameeyo statisticska SPSS-ka. practical badan bayna kaga baxan. waxaan rabaa inaan ku tuso tableki sida loo sameeyo. example, haddaa rabti inaad aragti xiriirka ka dhexeeya two variables, categorical variables, laba variable xiriir ka dhexeeya. always waxaa laga rabaa inaad xisaabisid percentageska
aad ka dhigtid because datadaada saan hore idin kugu soo sheegay variableska waa laba qaybood dependent variable iyo independent variable marka percentageku waa inuu la xiriiraa dhinaca independent variable independent variableska marka waxaa ka dhiganaysaa dhinaca column-ka gelinaysaa dependent variable kan waxaa gelinaysaa dhinaca row-ga maxaa yeelay isaga ayaa waxaa ku cabiraysaa independent variable-ki kadib chi square geli si aad u rabtid u fiirisid wax association inuu ka dhexeeyo analyze dheh kadibna waxaa leedahay descriptive statistic hoos u soo soco cross tables tag cross tabs halkan marka row-ga waxaa gelinaysaa datada dependent variable-ka ah column-kana waxaad gelinaysaa datada independent variable-ka ah example do you read newspaper row-ga gasho example dadka marka akhriya ama gender ahaan oo kale haddaan u fiirinayno hoos baa tegaysaa genderka raadi gender rag iyo dumar markay soo kala akhriyaan waa kan kadibna waxaad dhahdaa column-ka isaga gee marka column-ka waa inaan gelinaa hadhow ila fiiriya si fiican marka column-ka u fiiri gudaha markaan sii galo column-ka waa inaan marka qaybta percentage-ka inaan u fiirnay statistics tag chi square-na waa taan idin wax muhiim inaan laftiina association wax ka dhexeeyaan okay deh cells-ka tag by column deh counts-kaas iska qaad observer-ka because chi square-ka observer iyo expected-ka iwaad xusanaysaan column-ka tag continue deh okay intaas continue markaad ahayd waxaa kuu soo haray inaad samaysid okay deh continue deh okay waa leedahay board page-kii waa kusoo baxaya haddeer waxaa ujeedaa datadaadii aad u qurux badan waxaa ujeedaa Pearson chi square testiga nooca la isticmaalay weeyaan kan significance-giisa aan fiirinayno kadibna hadda waxaa u aragtaa chi square testigii baa ujeedaa iyo male iyo female dadkan waxay newska haystaan marka male-kii waa kan female-kii waa intaan marka waxaan fiirinaynaa wax associationisa inuu ka dhexeeyo ayaa halkaas muhiimadeeda inaan fiirino waxaan filayaa kaasna significance marka waxaan fiirinaynaa wax significance ah because probability-ga isticmaalayna wuxuu ahaa 0.05 marka halkana saa ka aragtid 0.0 way ka badan tahay datada waa 0.7 marka haddii uu ka yaraan lahaa 0.05 waxaan dhihi lahayn association badan baa ka dhexeeya laakiin sidaa ku aragtaan wax association ah kama dhexeeyo okay hadda waxaan rabaa inaan intuso sida correlation iska loo sameeyo iyo waxaasoo dhan intaas waxaan ka dhiganaynaa insha allah next lecture oo casharka dambe idin sharixi doono waana mahadsantihiin